gabadhan waxay joogtaa India waxaan isku dayay inaan anigu wadagta isticmaalo oo gabadhii contactigeeda helo marka koowaad oo gabadhii marka wax ka soo dhamaystay oo gabadhii sahanay kabacdi gabadhan ogaatay waa gartay gabadha sideed isku fahanteen bal jacaylkii gabadha idin dhaxmaray iyo meesha laga bilowday wax iga sheeg anigu de luqadii maana boodin kastoo fiidida daawan jiray ogaada macnaha jacayl ka dambeeyo oo reer jacayl inay yihiin haddana ma aanan ahaynin luqadii inta yaqaano laakiin gabadhu waxay wax gabadha barato waayo ilaa haddaba macnaha jaamacad bay barataa marka luqadda ingiriiska garanaysay marka nin saaxiibkaya oo aabihii qalitaan macnaha uu aaday inuu aabihii kusoo baray India dadkii waa marka nin saaxiibkay ahaa waan ku yimid xaafadda markaad tagto gabadhaas joogto ee wax barata numberkeeda iyo contactkeeda iyo social markii weekend intii uu soo noqday after 1 month uu soo noqday marka aniga wadii sidii baan ku sheekaystay wax badan ma dhib badnayn oo xilligii waraaqaha iyo bulshada isku dir jiray ma aha oo hadda qofku rabo inuu walkaada arko iyo hadduu rabo inuu sawirkaada arko wax kasta waa marka gabadh waan aragnay oo call video waan samaynay oo tiide in la soo fariistay naga caawisay iga waran bal in gabadh intii la jeclaado dareen noocee ku jira bal fasir ma aaminsani macnuhu jacaylku inuu yahay mid indhaha Soomaali iyo Hindi iyo Ingiriis iyo macnaha Afrikaanka labada qofku macnaha ku galo adigu macnaha niyada waxaad u sheegto waxa waaye qofkani macnaha diinahan waa mid koobaad aniga aan qaatay dawladda gabadha muslimada oo familkeeda muslimiin oo dadka muslimiin oo quraan yaqaano waayo ku dhigeeda macnaha iskuulka ka soo baxdo madrasada ku dhigtaayo macnaha dadka quraan fartaamsan horay waxaa soo jeclaatay gabadha Hindida ka hor adigu jacayl hore muxuu galay maya macnaha kan maanta iyadoo qaaday ka hore ma soo marin Hindidu waa wax fan badan oo jacaylkana ka dambeeyo dee filmaanta waa naga ku aragnay muxuu haystay adiga se muxuu haystay niyahow heestii waxay u baahan tahay dad badan oo aan aaminsanay macnaha adiga inaad ka mid tahay inaad caawiso u baaray barjawaab u baahan tahay ma fahamtay gabar Soomaali oo la jeclaada la garay sida loo doono oo reerkii baa loo tagiyo xoolaha la bixinay yarad iyo gabaati oo Hindi sidee loola xidhiidhaa sidee ula xidhiidhay oo gabadhan aad ku meelsan iyo xoolo lacag baan bixiyay waa gartay dhaqanka Hindida ragga iyaga la iibsada oo marka gabar loo guurinayo wiilka waa loo soo gadaa adil laguma gadanin miya iyo aan lama gadanin oo aniga macnaha Soomaalnimada gabadhii macnaha reerkiiba waa bedelmeen oo markii anigu traditionkii dhaqankii baan raacay min xoolo fadhiistay oo gabadha ay guursaday oo ay fiirsay macnaha sugayeen ma ahayn mana oran haddaan kula kaftamo hadda gabadhii waad guursatay ilaahay baa isku keen calfay hadduu awlaad idin siiyo maxaad u bixinay magacyada ma Salman Khan iyo Shahrukh iyo Vijay iyo mise geedi iyo raage iyo Tayyib iyo dubixin miyaho waxaan u bixinay jaamac iyo magacyadii Soomaalida dhaqankeena hore ay lahayd waa hagaag waa iska soo waa biidin murshid